soo dhawaada dhammaan xisaabta ku xiran janaalkeena. Maantana qisadaadin wada waxay ku dhacday wiil dhalinyaro ah oo ka shaqeynaya idaacad ku taalo meel ka baxsan magaalada. Qisadan waxay u bilaabanaysaa sida tan. Magacaygu waa Hebel. Waxaan ka shaqeeyaa idaacad ku taalo meel ka baxsan magaalada oo ku taalo meel duhur ah ama baadiye ah oo ah badanaa lama degaan. Dadka degan ay aad u yar yihiin. Meeshan waxaa u badan dadka isticmaalo sixirka iyo wax la midka ah. Anigu waxaan deganahay magaalada, waxaana u dhawahay meesha baadiyaha ah. Sidaas darteed waxaan ka shaqeeyaa idaacadaas meesha ku taala. Qoyskaygu waxay ka kooban yihiin 4 qofood. Hooyo, aabbo, gabar la dhalatay iyo wiil iga yar. Hooyadaydu waa qof da' ah, aabbaheena waa qof da' ah. Kulligood aniga ayaa u shaqeeyo, aniga ayaa biilka iyo cuntada iga sugaan. Kulli aniga ayaa haayo. Anigana maanta xaaladdeeda waa mid aad iyo aad u daran. Aydin bilow qisada. Waxaan si joogto ah ugu shaqeynayaa idaacadda ku taalo meesha baadiyaha ahayd. Subax walba waxaan aadaa idaacadda si aan shaqadeeda u soo qabsado. Idaacadda markii aan aado, waxaan diyaarsadaa waxyaabaha laga rabo iyo barnaamijyada maanta la fasixi doono. Markaan isku hagaajisto, waxaan hor fadhiistaa mikrofoonkayga. Kadibna waxaan dishiindeeyaa barnaamijyadii maalinkaas igu qornaa. Maalin maalmaha ka mid ah, waxaan aad ugu soo dahay shaqada. Waxaan u soo socday dhankii xaafadda. Xilli aad u dheerna way ahayd. Waxay ahayd xilli aan zaid ugu soo habsaamay shaqadeeda. Balse laakiin intaan xaafaddu sii socday ayaan wadada ku arkay nin oday ah oo sida bacdaasina waxaa ku jiro mikrafoon runtii aad iyo aad u qurux badan, aad iyo aad u cajiib ah. Markaas wuxuu igu dhahay, wiilkaygiyo adiga ayaa idaacad iyo waxyaabahaas ka shaqeeya. Waxaan u baahnaa lacag yar ayaan muxtaaj u ahaa. Mikrofoonkan waxa iska lahaa wiilkayga. Sidaas darteed waxaan u baahnaa inaad mikrofoonka iga iibsato si aan lacag u helo. runtii aad ayaan u yaabay sababtoo ah mikrofoonku waa mikrofoon aad iyo aad cajiib u ah. Waa mikrofoon runtii lacagtiisa aan la qiyaasi karin. Waxay la noqotay filim waa iyo jaanis. Isla markii odayga ayaan waxaan weydiiyay qiimaha oo ku rabo. Runtii odaygu wuxuu ii sheegay qiimo aad iyo aad u hooseeyo. Aad ayaan loo yaabay arrintaas. Odaygii lacagta ayaan siiyay, mikrofoonka ayaan ka soo qaatay. Waxaan soo aaday xaafadda. Maskaxdaydu maanta dhan waxay is weydiinaysaa odaygan siduu gacantiisa ku soo galay mikrofoonkan. Odaygan iyo mikrofoonkan maxaa iska khuseeya? Waxba ma aanan ka dhigan, waan iska soo baxay waxaan imaaday xaafadda. Sida caadada ahayd xaafadda ayaan imaaday, waa xilli habeen ah. Waan casheeyay, waan seexday. Subaxdii ayaa la gaaray, waan soo kacay sida caadiga ah nolol maalmeedkii ayaan soo kacnay. Hooyo ayaan soo macsalaamay, mikrofoonka ayaan soo qaaday, waxaan imaaday goobtii shaqada. Goobtii shaqada markaan imaaday, runtii waxaan rabay inaan mikrofoonkan cusub aan maanta ku sii daayo barnaamijyaadka. Saasay tahay waan ka mashquulay shaqada igu badneed. Waxaan isticmaalay mikrofoonka caadiga aan hore u isticmaali jiray. runtii maalmo kadib markii aan sidaas u waday barnaamijka oo aan mikrofoonka caadiga aan ku waday shaqada, maalmaha ka mid ah ayaan waxaan arkay mikrofoonkii oo miiska saaran. Waan yaabay. Markaasna waxaan ahaa qof firaaqo ah oo aan barnaamij iyo waxaas aan haynin. Markaa jaanis ayaa la noqotay inaan mikrofoonka xiriiriyo oo aan sidaas ku sii daayo barnaamijyaadka oo aan tijaabiyo mikrofoonkan iyo qaabka uu shaqeynayo. Maalinkii ugu horreysay mikrofoonka ayaan xiriiray, waan diyaariyay. Anigu aad iyo aad u jeclaa inaan mikrofoonkan mar uun aan barnaamij ku sii daayo. Sababtoo ah mikrofoonkan wuxuu ahaa mikrofoon aad iyo aad u cajiib ah. runtii mikrofoonka aniga aad ayaan ugu helay. Maalinka koowaad mikrofoonka barnaamijka waan ku daayay. Maalinka labaad sidoo kale barnaamijyaadka waan ku daayay. Bas laakiin maalinka afraad ayaa waxaan dareemay mikrofoonka ayaa waxaan ka dareemay waxyaabo cajiib ah. Sababtoo ah mikrofoonka markaan ku hadlo, codkaygu wuxuu u soo baxayaa si kale. Wuxuu u soo baxayaa si qof weyn oo kale oo da' ah. Waan la yaabay waxaan wali jiray cilad farsamo. Markaan farfarteeyo waa ficnaanaa, markaan taabto waa ficnaanaa. maalmahan sidaas ku waday, codkaygu isbedelaa, waan toosinaa.
markii dambe maalmo kadib waxaan dareemay microphone-ka markaan ku hadlo oo aan barnaamijka aan bilaabo aan dhaho asalaamu calaykum maanta waxaan rabaa inaan soo gudbiyo barnaamij saas isla markii hadalkayga oo bedelan ayaa lagu soo celinaa. markii aan microphone ku hadlayo waxaan dareemay si inuu qofkan ila hadlayo oo kale. runtii markaasna waxay ahayd xilli shaqada aan keligay ku qornaa, xafiiskana waxaa joogay keligayga, cid kalena maysan ila joogin. runtii markaan microphone ku hadlo waxaan dareemayaa si inuu qof kale ii jawaabayo oo kale, si inuu qof kale ila joogo kale. aad iyo aad ayaan taas uga naxay. arrintaas aad iyo aad ayaan uga naxay runtii sababtoo ah waxay la noqotay waxyaabo aan weligay aanan arkin. waxba kama dhigan barnaamijka ayaan dhameeyay runtii anigoo aad u naxsan. waan iska soo baxay xaafadeeda ayaan soo aaday. maalinka xigtay sidoo kale waan imaaday, shaqada ayaan ku daahay, barnaamijyo waaweyn ayaa ii yaalay, keligay ayaa xafiis ku soo haray, dadkii shaqada qornaana waa ay kala tegeen. maalintaana sidoo kale waxaan dareemay in runtii codka uu ii soo dhawaanayo oo kale. si marka hore waxaan umaleynaya qof iga fog oo kale dhawaaqay waxaas ayaan maqlaya. bas laakiin hadda mar walba aan hadlo waxaan dareemaa inuu qof kale ila sheekeysanayo oo kale, inuu qof kale barnaamijka ila tabinayo oo kale, qof ii dhow oo kale. meeshana keligii ayaa joogo. runtii arrinta cabsida ayaa igu sii saaciday, cabsi laba jibaarin ayaan dareemay. waxaan dareeminaa barnaamijka boobsiyo aan soo baxo, inaan boobsiyo aan soo baxo. runtii waxay ahayd xilli shaqada aan zaid ugu daahay, waxay ahayd xilli habeen ah. runtii meesha gawaarida laga raaco ayaan u soo socday, gawaaridii hore ayaa iga buuxsameen waana iga tegeen. intaan wadada soo socday xilli habeenna way ahayd. waxaan dareemayaa socodka aan soconayo kale in lila socdo oo kale, macnaha keligay inaan socon oo lila socdo saanta lila soo qaadayo kale. gadaal ayaan fiiriyaa, dhinacyada ayaan fiiriyaa. runtii aad iyo aad arrintaas ii cabsi gelisay. cabsida ayaa igu sii saaciday, aad iyo aad ayaan u cabsaday. waa naxay, waxaan isdhahay ma carartaa, ma istaagtaa, maxaa samaysaa. runtii welwel iyo cabsi aad u badan ayaan dareemay. socodka ayaan boobsiyey. waxaan dareemay haddana arrin runtii aad iyo aad wadnaha inuu istaago qalqal ii gelisay. sababtoo ah markaan isku dayay inaan socod boobsiyo oo aan si zaid u socdo, waxaan dareemay in dad badan ay soo daba socdaan oo kale, si dad aad u tiro badan oo hal mar wada socdo oo kale ayaan dareemay. runtii waxaan ogaaday inuu wadnaha ii istaago. anigoo isla gadaal fiiri aan hal mar waxaan arkay baskii oo dhankii u soo socdo. runtii aad ayaan u qaboobay, baski ayaan raacay anigoo naxsan. xaafadda ayaan imaaday. xaafadda markaan imaaday habeenkii anigu sidaan u walwalayay waan iska seexday. subaxdii kale ayaan soo kacday, aad anigoo u cabsanaya u baqaya ayaan waxaan soo aaday shaqada. runtii subaxdii waxay ku bilaabatay si caadi ah. saacada ayaan u bilaabatay, shaqadeeda ayaan galay, barnaamijyadeeda ayaan watay. haddana sidoo kale shaqada ayaa ugu dheeraatay, waan daahay, xilli habeen ah ayaa la gaaray. base laakiin habeenka habeenada kale way ka duwan tahay, sababtoo ah barnaamij waxaa ii haray oo iska yar. barnaamijkii yaraa anuu ku guda jiro oo barnaamijkii la dhammeyn rabo ayaa hal mar waxaan arkay arrin aad iyo aad runtii cabsidii hore aan u qabay sii siyaadisay. waxaan arkay microphone-kii aan ku hadlayay oo wax ka daadanaya sida dhiig oo kale. aad ayaan u qalqalay. waxaan isdhahay maxaa waay waxaan microphone ka daadanaya. microphone-ka ayaan fiiriyey, waa sidii wax ka socdo dhiig qulqulayo kale. aad ayaan u naxay. gacmahayga ayaan fiiriyey, waa wada dhiig. waa naxay. waxaan u dhawaaday inuu wadnaha sigto. kadibna hal mar ayaan waxaan maqlay cod qof igu leh, waxaad maraysaa intii ugu dambeysay, hana welwelin, wax sii socon doono ma ahan. aad ayaan u naxay. intaas kadib waxaa dhacday arrin kale aad ii cabsi gelisay.